mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland ee madaxweyne Biixi ayaa walaac ka muujiyay siyaasadda Itoobiya ee ku waajahan gobolka Geeska Afrika. wargeyska The Reporter ee ka soo baxa magaalada Addis Ababa ayaa warbixin uu shalay daabacay waxa uu ku sheegay in madaxda Somaliland ay ka walaacsan yihiin siyaasadda ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ee ku waajahan gobolka Geeska Afrika. warbixinta oo wargeysku ciwaan uga dhigay Somaliland waxa ay walaac ka muujisay siyaasadda gobolka ee Itoobiya. waxa uu sheegay in aanay Itoobiya weli magacaabin beddelka qunsulkii hore ugu joogay caasimadda Somaliland ee Hargeysa oo howlgab ka noqday shaqada. warbixinta waxaa diyaariyay wariye Burhanu oo ka mid ahaa saxafiyiin Itoobiyaan oo socdaal ku yimi Hargeysa, waxaanu la kulmay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo warfaafinta ee Somaliland. warbixintan oo Geeska Afrika soo turjumay waxa ay u dhignayd sidan: kadib isbeddelka hogaamineed iyo awoodda dalka Itoobiya oo yimi ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, dalka xaqiiq ahaan madaxa bannaan ee Somaliland waxa uu dareemayaa in dhinac loo riixay iyadoo Abiy uu qaaday tallaabooyin wax ku ool ah oo dhinaca Muqdisho ah iyo dalalka kale ee dariska la ah. xilligan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Somaliland tayar ee gabadhaclaynaysa ayaa si cad uga hadlay walaaca ay ka qabaan xisaabta siyaasadeed ee maamulka cusub ee Itoobiya. Reporter ayaa sidaasi ogaatay sanado badan Somaliland dariska goonida u taagan waxa ay ku raaxaysanayeen xidhiidh togan oo horu socod oo ay la lahaayeen Itoobiya, iyadoo oo labada dal midba midka kale ku garab istaagayay danta ay wadaagaan. balse sida ay qabaan Cabdinaasir Axmed Xirsi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ah, iyo Mukhtaar Maxamed Cali oo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, arrimaha dhowaan ka soo cusboonaaday Itoobiya iyo natiijada ka dhalatay ah in Itoobiya la saxeexatay heshiis saddex geesood ah Eritrea iyo Soomaaliya waxa ay abuureen dareen isku dhafan oo ay qabaan mas-uuliyiinta Somaliland. heshiiska saddex geesoodka ah waxaa laga reebay Somaliland, balse waxaanu jecel lahay inaanu aamino inaanu xidhiidh weyn la leenahay Itoobiya. Cabdinaasir Axmed Xirsi, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa sidaasi u sheegay saxafiyiinta ka yimid dalka Itoobiya. la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa muujiyay walaaca ay dowladoodu ka qabto danaha diblomaasiyadeed ee Itoobiya ay ka leedahay Somaliland. tusaale ahaan, Itoobiya umay magacaabin qunsul guud oo bedela diblomaasiga howlgabay ee fadhigiisu ahaa Hargeysa. waxaa intaasi dheer in Somaliland darisku ay welwel ka qabaan ammaanka aan cagaha adag ku taagnayn ee ka jira xadka ay la wadaagaan Itoobiya, maadaama oo Itoobiya aanay muujin wax fifaala ah oo ku aadan wada shaqayn si la mid ah sida ay hore u shaqayn jireen. hase ahaatee, dhacdooyin waaweyni kama dhicin xadka, balse hubaal la'aanta sii kordhaysa iyo in aanu jirin dhinaca Itoobiya feejignaan weyn oo ay u leeyihiin xadka ayaa waxa ay sare u sii qaaday arrinta. saraakiishu waxa ay ka walwalsan yihiin waxaa dhici kara marka la eego xiisadda siyaasadeed ee ka jirta gudaha Itoobiya. Maxamed Cumar Xaaji oo ah la taliye sare iyo gacanyaraha gaarka ee wasiirka, iyo Maxamed Maxamuud Barawaani oo ah la taliye sare oo dhinaca siyaasadda ayaa labadooduba cabiray walaaca ay dowladda Somaliland ka qabto amniga xadka. labadubana waxa ay iftiimiyeen Somaliland ay ku kharash garayso ammaanka wax ka badan 40% miisaaniyadeeda. qayb ka mid ah lacagtaasina waxa ay ku kharash garaysaa sugitaanka xuduudda ay la leedahay Itoobiya. hase ahaatee, sida ay ku doodayaan mas-uuliyiinta Somaliland, in ku dhow 2 sannadood maamulka hadda ka jira Addis Ababa tixgelin yar ayaa uu siiyey walaaca ammaan iyo diblomaasiyadeed ee Somaliland. waxay sheegeen in ay si dhow ula socdaan siyaasadda cusub ee arrimaha dibadda ee Itoobiya ee hadda gacanta lagu hayo dejinteeda. si taas la mid ah, mas-uuliyiinta Somaliland waxa ay cabireen walaaca ay ka qabaan xaaladda walwalka ee ka jirta Itoobiya, taas oo ku soo fidi karta Somaliland.